markale isu soo noqod wacan wanaagsan daawadayaal ha ku bilaabo qodobkeena ugu horeeyay warka caawa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka NASA Musalia Mudavadi ayaa waxa uu sheegay in sanadka 2022 uu taagan yahay madaxweynenimada dalkani Kenya halka uu sheegay inuu yahay midka kaliya ee haatan ku soo haray mucaaradnimada halka madaxdii kale ee mucaaradka isku jireen ay dawladda shaqooyinka qaateen warbixin amuurahaas ku saabsan waxay noo qaadaan dhigahaya wariyahan iyaga Bashiir Ahmed Dhaqane gudoomiye ku-xigeenka mucaaradka Musalia Mudavadi ayaa shaaciyay inuu u taagan yahay xilka madaxweynenimada sanada 2022 mas'uulkan ayaa sheegay inuu yahay mas'uulka kaliya ay haatan mucaaradka ah halka mas'uuliyiintii ay mucaaradkooda ahaayeen ay dawladda ka shaqo doonteen laakiin asaga ay shaqadiisu tahay in dadka dhaliilsan dawladda uu la istaago. Mimi natafuta urais wa Kenya na mimi nasimama hapa nikisema I am the last man standing kwa opposition. Mimi ndio nimebaki kwa opposition. Wengine wameenda kushika kazi pahali pengine. Na mimi nimeambia Wakenya wote na nikaambia hata president, mimi sitaki kazi. Mimi sitakuchukua kazi nyingine. Mimi tayari niko na kazi yangu ya kukuwa leader of opposition, kutetea wanyonge na sina mshahara lakini nimekaa hapo. dhanka kale mudanaha ayaa sheegay in shirkadaha mas'uuliyiintan aysan ka soo muuqanin shirkadaha canshuurta badan bixiya halka shirkadaha ugu canshuurta badan ay ka dhaqaale badan yihiin. Hati wana pesa kushinda Safaricom. Wanatoa hapa na hapa pesa kushinda Safaricom. Lakini wakati Uhuru Kenyatta anaitisha zile kampuni kubwa Kenya ambazo zinalipa ushuru, kampuni za hawa jamaa hazionekani huko, haziko kwa orodha. Sasa wewe jiulize, kama mtu anatoa pesa ambayo inashinda Safaricom na kampuni yake haionekani kule kwa wale wanalipa ushuru, sasa hii pesa imetoka wapi?